ciyaarahan markuu dhamaado waxaan noo balansan ilaa iyo 2 xul oo kale oo wadamada dariska ah ee aan rabno inay noogu yimaadaan friendly match oo maxay toole xulkeen qaranka ee la ciyaarayaan dadkii hore lajmadii Cali Cusmaan iyo Rombe iyo Agaasim Saacid nagala joogan ciyaartooyda hore qaranka markii aad wareysatay dadkii halyeeyada qaranka sportska aan leenahay garoonkan wuxuu leeyahay taariikh aad u facweyn ganacsatadeena shacabkeena dhalinyaradeena ciyaartooydeena qubaradena anagoo iskaashanayna hay'adaha amniga waxaan rabnaa garoonkan sidoo ahaan jiray si ka fiican inaan ku soo celino garoonkan tuulada ciyaaraha dhammaan filiyada ee leedahay laga shaqeysay ama meelasha ee leedahay sida basketballka handballka volleyballka dhalinyarada nasiibka u yeeshay inay sanadkan ay dadka u soo daawasho tagi doona ama imaan doona ciyaaraha dawlad goboleedyada ee gobolka Banaadir sanadkan inay noqdaan tiimka maamuuska ama dadka hagaayo hawshan waa iska bilow wax walba bilow ah boqol sidee ahayd lama filaayo laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad ka dhigtaan boqol sababta lidinkugu soo xulay waxay ahayd in qolo walba ama jaamacadda ama institutionka ay ka socoto in ay akhlaaqiyadkeeda ku matasho wixii qofkaas ka soo laabtana runtii waxa uu damage gareyn doona ama dib ugu laaban doona institutionka ama meesha uu ka yimid waxaan rabnaa munaasabadan waa kooban tahay ama tartankan waa tijaabo hadduu ilaa yiraahdo waa 13 game aan filaa iyo wixii soo raaca waxaan rabnaa hadduu ilaa yiraahdo garoonkan oo u shaqeynayo standardka garoomada caalamka garoonkan oo aan lahayn isbarbaryaac team inta isku raasataan idinka laftiinaada meel u istaagina garoonkan waa weyn yahay 50 qofood yani waxaa la rabaa qoloba meeshii loogu talagalay loo asaan gareeyay inay ka shaqeyso inaadan hal meel isugu imaanina shaqo lagu ogyahay inaadan soo dayacin kulli waxaa jiri doona kulli agaasimahan ka rabnaa iyo Taliya Cabdullaahi waxaan ka rabnaa qolo walba meesha lagu qoray iyo team leaderkii lagu qoray in la isla shaqeeyo waxaan rabnaa qof walibana inuu u hogaansamo awaamirta qofka team leaderka u ah sababtoo ah waxa waaye taas lafteedu waxay na tusinaysaa muujinaysaa inaan ku camal falayno maadaama dad ummad islaam nahay xadiiska nabiga hadda 3 qofood meel isugu timaadaan inaad amiir samaysataan ama qofkiina aad u dhibataan hogaanka marka qofka loo garta ama loo asaan gareeyo inuu yahay team leaderka inaad awaamirta maqashaan la shaqeysaan isla shaqeysaan colleague noqotaan team workna aad sameysaan waxaan u baahanahay anaga waxa waaye garoonkan oo ka duwan wixii hore loo imaan jiray ama sidii hore loo imaan jiray garoonkan waxaan u baahanahay ciyaartu dadka imaanaya ay ku raaxaystaan si qurxoon nabdoon ay inta u daawadaan ee u baxaan arabna marka taa waxa suurta gelin kara idinka iyo hay'adaha amniga ee aad wada shaqeyn doontaan waxaan rabnaa inaad qayb kamid ah aad hadana ka noqotaan bilicda iyo markii laga soo tago maamuuska amniga hadana in hay'adaha amniga ee aad isla kaashi samaysataan isla shaqeysaan waxaan rajeynaa kulli garoonka iyo meelihii aad ka howlgali lahaydeen in agaasimaha uu tababar gaaban ama short maxay toole tour idin sameyn doono ogaan doontaan hadduu ilaa yiraahdo standardka aan ka rabnaa waxaan rabnaa garoonkan ciyaarahan markuu dhamaado waxaan noo balansan ilaa iyo 2 xul oo kale oo wadamada dariska ah ee aan rabno inay noogu yimaadaan friendly match oo maxay toole xulkeen qaranka ee la ciyaarayaan taas marka waxa suurta gali karo sidaad idinka performance-ga muuqaal ahaan saad ka dhigtaan waxaan rajaynaynaa muuqaal qurux badan inay ka baxdo ciyaartan soo socota insha Allah haday ka baxdana ciyaaraha xiga waxaan rajaynaynaa inay noo qabsoomi doonaan waxaan rabnaa garoonkan wuxuu ahaan jiray markii taariikhdiisa loo fiiriyo waayihiisa maxay toole dadkii hore lajmadii Cali Cusmaan iyo Rombe iyo Agaasim Saacid nagala joogan ciyaartooyda hore qaranka markii aad wareysatay dadkii halyeeyada qaranka sportska aan leenahay garoonkan wuxuu leeyahay taariikh aad u facweyn wuxuu ahaa mid kamid ah garoomada ugu horumarsan ama ugu horeeya Africa number 1 biidinlaahi tacaala waxaan rabnaa insha Allah anagoo iskaashanayna guud ahaanteena ganacsatadeena shacabkeena dhalinyaradeena ciyaartooydeena qubaradena anagoo iskaashanayna hay'adaha amniga waxaan rabnaa garoonkan sidoo ahaan jiray si ka fiican inaan ku soo celino ta marka tusaale yar oo bilow waay
aan sii qurxinno maalinba meel aan ku darno fikrada la isku dardaraa intaan ku keennay in ka sii badanna waa keeni karnaa hadduu ilaa yidhaahdo qaybta koowaad hadda annaga wasaaradda sportskan kubadda cagta keliya kuma koobna laakiin maadaama munaasabadan hadda inoogu soo food leedahay ee xamaasadda leh ayaan qaybtan ugu bilaabnay laakiin insha allah waxaa noo qorshaysan garoonkan tuulada cayaarahoo dhammaan filliyada ee leedahay laga shaqaysiyay ama meelasha ee leedahay sida basketballka handballka volleybalka kubadda futsalka dabaasha dhammaanteed waa laga shaqaysiin doonaa garoomo kale oo casri ah moderate waa lagu soo dari doonaa waa mahadsantihiin